qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Baydhabo iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ayaa si weyn u soo dhaweeyay jiritaanka jaaliyadda North America oo dhawaan laga hirgeliyay dalka dibadiisa wax badan ka qabatay deegaanada Koonfur Galbeed. Haddaba qaar ka mid ah bulshadaasi oo mikrofoonka maanta la dhax qaaday ayaa waxa ay uga hadleen dareenkooda sida tan. runtii haddii uu dhalinyarada ku nool Koonfur Galbeed qaas ahaan haweenka Koonfur Galbeed eedahan dhawaayaan jaaliyadda cusub ما يبانتو كسلامي سمفله حاجة آدم وسيو تيم شيء شقد وناكسون أو كهاين ديجانو كونفور قلبت كنت أرن إيد لنك فرح سومو وأنا أرن مدن لواد السجايو. واتها أمينة واحد كيف كهاي الهيرة مجالات بيدبا جارهان دايرتا إن جالية دوان لقى أساسي نود أمريكا وأنت بدنا ولا كقاعدة أرمها ضدك كونفور قلبت يجديو كونفور قلبت ملوبي كجوان ديجانو كونفور قلبت بل أنت أي وذين دقيقة ضدك أي واحد وقبنايا بل محاكا رالي جدي أو تسولوس إن ولياوان أنت بقيتها إنجي ذن ما بهايتي سديو أنكو فعل عليه أم جواب دق يكوبيان فتهادي كدياسي أفجوية runtii arrin lanka faraxo majarajarna sanadyaaka hadii la dhaafay barnaamij nooc ama amsal si dhawaatan dhido degdegun response laan ku biyay majarajarna si aan ku falnagan amsal si degdeg aan ku jawaaban baahida ku jarti afgooye taas ay tahay jiidito aan arrin lak faraxana wal misleedahay isdhaxgalka bulshada gaar ahaan dhinaca dhalinyarada qayb weyn ay ka qaadan karaan ha in qaybiyan ku qaadan karaan hadii dhinaca ciyaaro haddii miitino lan qowda dhalinyarada nashan oo raadiyo iyo raashay walaashu ku hadalaayaan intii dhalinyartu binaanka isku fadhiifadeen oo waliyaaw kale stress qaad fadeen oo waliyaaw kale oo qalbisha banka jarna ka dhiifadeen iyada muhiim ah tarintaasi mustaqbalka dambe maxaad isleedahay way ka qaban karaan ama way ka bedelan karaan mustaqbalka dambe ma aaminsana haddii si hadda ka dareeran oo wili bisiilam jibaaran deegaanada Koonfur Galbeed walbadan oo la taabado koroniyo ku qabdo koran ونن مرول بنقرب شو سرنا كدمرها سيدات سود وينيس إن إذا هندواية إذا نفرح سنة إذا نعمل شقية دونا دلائر على كنا وحان كم ده هيدا تكونوا مجال بيدابو أصلها أنا كسر دينصور دول كباي وحان واركا وحفي عن إيو إن أو دتكو ديجان كانوا كوفر البيت أيوهين كوهر مرنا يا مركا آدي هذا وفرح سنة هاي جالية داس إن لا أساسه هوش أي هاي سنة آدي هذا وقنا سنة. wax qabadkeeda tan markii la asaasay adigoo in badan ay tusmay deegaanada Koonfur Galbeed hal ilaw maxad ka taaban kartaa saaxiib inta ogahay jaaliyadaas waxyaabaha ay sameysay waxa kamid ah xiliyada soonkii oo kale afurinta ay u sameysay dadkii masaakiinta ah barakacayaasha Baydhabo waxay kala sameysay koobka ordada gobolka Boqol gaar ahaan Xudur sidoo kale koobka isdhaxgalka kubadda cagta diisoor oo kale iyo waxyaabo badan ay qabatay oo horumarin ah iyo gargaar ah oo dadka deegaanka ay u qabatay ayaan arkaa ka dhalinyarahan sidoo u soo dhaweynaysa noo aad iyo aad ugu faraxsanahay dhalinyaradan aad bay ugu reeyaqsan yihiin way soo dhaweynayaan waa wax aad iyo aad u fiican in halkaas ay ka sii wadaan dadaalkooda ayaan u rajaynayaa tan kalaamad afgooye oo xaqiiqdii isan ku harkaytan marxalad suun way leeraaysiya oo suunta iyo dadkii oo way leeraayis yaxaaskata banaanka amahay ya xaqiiqdii jaaliyada oo gudoomiyahan ka horeey way leeraayis kaalmiinka ku qaadayaan way leeray qaab badan kale wadan saasaato way baan ka mahadnaqay gudoomiyaha iyo jaaliyadiisa way ka mahadnaqay sida wanaagsan deegaanka kiga aan ku jeedi buurakaba oo way leeraayis ku soo been isdhaxgal bulsho sports oo way leeraayis intaas badan way leeraayis la amaan weyn la tan kala maatay baa ka mahadnaqay gudoomiyaha iyo jaaliyadiisa arin hatu hor dheedii afgooy ka dheedii oo way leeraayis yaani gabdhaar yar oo dhibaato lan jeysidi kaalmiin ku qaadadan oo way leeraayis dhibaatada sayti way nutuseena inay yaani shacab iyo markas garab suruniin bismillahirrahmanirrahim marka hore ma baan ku salaamay dhamaan jaaliyada Koonfur Galbeed Soomaaliya meel walba ay ka sugan yihiin anoo ka hadalaw magaaga iyo magaca ururka haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya magaaga Salim Sheekh Shaabal especially may ku dareeray ururka haweenka Somali Women Peace Center leerow oo ku shaqeeyo Koonfur Galbeed oo aan shaqeeyo arrimaha haweenka ان مبان mahadnaqay jaaliyada oo walbadan ku qabadahay horumarka Koonfur Galbeed eedan ku shaqeeyaysa yaa macnaha in walbadan oo la taabado koro muuqato ku qabadeen sida garoonka degmada Xudur
gobolka baay iyo meel rajaray barnaamijyadu oo hadda fatahaadiyada ku dareera shabeellada hoose afgooy iyo hata diyaaranayeen in walku qabadan walbadan oo iyo ka kordhiyaan koonfur galbeed jarta mar walbana surinyin in iyo meel raayso deegaanada koonfur galbeed iyo garab surmaan mis horumarka bulshada iyo ku shaqeeyaan eedeedan kama nagaan waxaad aragtay jaaliyadda inay howlo badan ay ka qabtay deegaanada koonfur galbeed qaybaheeda kala duwan sida xudur baydhabo afgooy iyo meelo kale ahaan bal sidaad u soo dhaweysay waxyaabaha aad ku soo dhaweysay maxaa kamid ah maasha Allah eedeedan ka faraxsanna walbadan ka dhawaayaan oo macnaha in yoo qabadeen sida meel rajari barnaamijyada oo COVID-19 oo walbadan ku qabadeen macnaha wacyigelintiisa iyo horumarkiisa sidii oo bulshada lagu qayblanku nagada fadsilan ku badbaadi faday iyo macnaha in degmada xudur elbor oo caalami ay ku suubiyaan kubadda cagta oo dhalinyarada haatan meel rajar ka howlayn in iyo walbadan ku qabadaan meel rajari deegaanada koonfur galbeed bal dadaaladan ay wado mustaqbalka dambe ee deegaanada koonfur galbeed maxay is leedahay waa laga gaari doonaa والله ما شاء الله أرن إيدي فايلو والوالبه بعنا إن تشوس كتلذان أو لسكالة والوين والكحوب ذكره يعني إن تم بقول وين إني من أنا جاليد إنسورنت إني دقمة أنا كوفر قلبي والكحوب التو لإني جميل رجري كهرتجا أنا حد جذبي ذا هوين كل إنجاز ذو يعني أنا بدل ما يبقى إن بشكل يعني مسمع أنا كساعداني ذاتك سبت بالك أو معناه أو نقول حد جذبيد أنت بدن الإنجاز ذا هاي أو معناه إن سدي أو لنقوحي جليفة ذي ولا قص مركون يوم يبغى لين والباب لنا سكول شقة أو لسكالة والوين ومستقبل فايل اللي كدير بقرلها وودن دشيء للسداء دشيء نقود الشقة سد معناه إن يوم كجلس سد إني ودن كوالن قبضة هرمركم كشقة deegaanada jaaliyadda ay ka geysatay kaalmaha lixaad kale ayaa waxaa ka mid ahaa magaalada baydhabo buurhakaba diinsoor afgooye wallaweyn qansax dheere iyo degmada xudur oo ay ku qabteen koobab kubadda cagta iyo orodada ka qayb qaadashada dhismaha garoonka weyn ee degmadaasi oo kaalin lixaad leh ay ka qaateen maxamed deeqseer jito RTN TV baydhabo.